moogtahay in haddii aad u malaynayso in yaxaaskani uu dhintay sidaas darteedna uu meydkiisu u dul sabeynaya biyaha inaad khaldan tahay daawade. badanka xayawaankan loo yaqaana yaxaasku wuxuu sameeyaa sidan, mana aha mid dhintay ee si ula kaca ayuu iskaga dhigaa meyd. tanina waa xeelad uu adeegsado ugaadhsiga. mararka qaarkii marka yaxaasyadu ay doonayaan inay bani aadam ugaadhsadaan waxay iska dhigaan inay dhinteen oo kale oo biyaha dushooda ayay si deggan u dul sabeeyaan, amba waxay iska dhigaan sidii qof bini aadama oo biyaha ku qarqoomay oo waxay soo taagaan gacantooda sidii qof hafanaya oo kale. markuu qofku u maleeyo in waxaan biyaha ku hafanaya uu yahay bani aadam ee usudhaa soo badbaadina wuxuu afka ka geli doonaa yaxaas diyaarsan. inta aynan sii wadin muuqaalka, ma leedahay ganacsi amba adeegad rabta inuu dad badan gaadho? ma u baahan tahay xaysiis kaasoo kaa caawinaya inaad hesho macmiil cusub? waxaan diyaar u nahay inaan si xirfad leh u xaysiino ganacsigaaga amba adeegyadaada si uu u gaadho dadka ku habboon. fadlan nala soo xidhiidh adigoo fariin noogu reebaya qaybta fariimaha, amaba qofku wuxuu isku dayayaa in yaxaaskan meydka uu biyaha ka soo saaro. markaas ayuuna yaxaasku si lama filaan ugu soo boodayaa oo ku soo qaadayaa weerar ba'an. waana khiyaano halis badan oo ay mararka qaarkood isticmaalaan yaxaasyadu si ay dadka u ugaadhsadaan. haddaba daawade, adiga su-aal haddii aan ku weydiiyo, hore ma u aragtay xeeladan yaxaasyadu ay adeegsadaan si bini aadamka ay u ugaadhsadaan? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad falow noo saarto youtube-ka iyo facebookka brofilka saaranna aad subscribe dhahdo.